وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إلهي سبحانه وتعالى kitaabkiisa xakiimkaa waxa uu noogu tilmaamay abaalmarinta ay leeyihiin dadka mu'miniinta ah. qof walboo ilaahay aamina oo awaamirta ilaahay fuliya oo khayrka ku dadaala oo salaadaha ilaaliya oo xumaanta ka fogaada oo carabkiisa ilaaliya oo wax allaala wuxuu ilaahay u diray sameeya wuxuu ilaahay u diidayna ka fogaada abaalmarka lagu abaalmariyo. waa shaqo la qabtay, waa howl la qabtay oo la sameeyey. adduunka inta aan joogno waa la shaqeeyaa. qof walba subaxii waa ka lahaa oo meel buu shaqo u aadaa. 30 maalmood markay dhammaatana mushaharkiisa la siiyaa. dadku mar allaala markay dareeraan oo shaqooyinkooda ay aadaan way ku qanacsan yihiin. sababtu maxay tahay? waxay og yihiin bishu marka ay dhammaato in mushqaayad la siiyo. waxay og yihiin abaalmarkooda in la siiyo. waxay og yihiin wixii ay ku shaqeeyeen in la siinayo. haddaba qofkii soomee salaaday, tawxiidka la yimid, xumaanta iska ilaaliyey, wuxuu ilaahay u diray sameeyey, gabdhihii xijaabtee xishooday, amarka ilaahay qaatay, jirkoodii ilaaliyey, maxaa abaalgud u ah? maxaa la siin doonaa? muxuu ilaahay ku abaalmarin doonaa subxaanahu wa tacaala? qof kasta oo hadda aanu tilmaannay wuu qanacsan yahay. sababtu waxay tahay wuxuu og yahay waxa uu ku shaqeeyo. dadkan waa inay ogaadaan waxa ay ku shaqaynayaan. maxaa abaalgud u noqonayo ilaahay siinaya subxaanahu wa tacaala? wallaahu yadcuu ilaa daari الsalaam wayahdii man yashaau ilaa siraaطin mustaqiim. ilaahay ugu horayntii wuxuu dadka ugu wacaa ilaa daari الsalaam, daar badbaado ah, daar nabadgelyo ah, daar qiimo badan, daar karaamo ah, daar sharaf leh. sidaa darteed ayuu ilaahay ugu yeeraa subxaanahu wa tacaala ilaa daari الsalaam wayahdii man yashaau ilaa siraaطin mustaqiim. qof allaala qofkuu doonana wuxuu ku hanuuniyaa jidka mustaqiimka ah, wuxuu ku hanuuniyaa waddada khayrka iyo wanaagga leh. waxaanu wax ka tilmaamaynaa jannada sifada ay leedahay. marka la gala waxa lagu dhex arki doono iyo dadka loogu talagalay yeeyihiin. yaa la siinayaa jannada ilaahay diyaariye subxaanahu wa tacaala? dadkii hawshoodii qabtay. kambeniga adoon u shaqaynin bishu markay dhammaato aadi maysid meesha laga qaata lacagta. sababtu maxay tahay? ma shaqaynin. qofkii u shaqeeyey waa xaadiraya asagoo kaarkiisa wata. qofkii u shaqeeyey waa tegaya asagoo qanacsan oo aan ka baqayn in dib loo soo celiyo. sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba oo amarkiisii awaamirta iyo qayr ka fuliyey saasoo kalea loogu abaalmariyaa. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, dadka ahlu jannaha la taraawun waxay arkayaan fowq iyo dushooda dad ka sarsareeya sida xidigaha iftiinka badan ee koreeya dadkay markaa u arkaan. adigoo hoos joogaa waxaa la arkayaa ama aad arkaysaa qof kaa sarreeya oo meesha hadda xidigaha ay noo jiraan oo kale markaa jira. rasuulku markay su-aaleen sala allahu calayhi wasalam, ma nebiyaashiiba? wa tilka manaazilu alambiyaa, nebiyada meelahay degayeen miyaa rasuulkii ilaahayow oo qayrkood aan heli karin? balaa
waaladii nafsii biyadihi buu yidhi maya macbuudka xaqa ah ee naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye waa rijaal aamanuu biاllah ilaahay aaminay subxaana wa tacaala wasadaquu lmursaliin mursaliintana rumeeyey waxay aamineen ilaah subxaana wa tacaala waxay rumeeyeen wax allaala wuxuu ilaahay u diray waxay ka fogaadeen wax allaala wuxuu ilaahay u diiday mursaliintii lala soo diray amarkaa keenayna way rumeeyeen waa rijaal buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam waa rijaal ilaahay aamintay waa rijaal howl qabatay waa rijaal camal qabatay waa rijaal ilaahay awaamirtiisii fulisay subxaana wa tacaala jazay leeyihiin abaalgud bay leeyihiin mushaharka ay qaadanayaan waa ilaahay agtiisa jazaa'uhum cinda rabbihim jannaatu cadanin tajrii min taxtiha alanhaar waxaa lagu abaalmarinayaa buu ilaahay yidhi jazaa'uhum cinda rabbihim marka ugu horaysa waa rabbigood agtiisa wax ka dhumaya ma aha waxa ilaah agtiisa yaala wax la halmaamaya ma aha wax ilaahay agtiisa yaala wax kaa dayacmaya ma aha wax ilaah agtiisa yaala sidaa darteed ayaa aasiya fircoon xaaskiisii ay tidhi rabbi bni lii cindaka baytan fi ljanna cindaka maxay u tiri waxay og tahay ilaahay inuu caadil yahay subxaana wa tacaala waxay og tahay ilaahay subxaana wa tacaala inuusan axad wax ka dulminaynin markaasay tihi rabbi bni lii cindaka baytan fi ljanna ilaahu agtaada marka ugu horaysa jannada ma sheegina ilaahay jiwaarnimadiisa ayay codsatay subxaana wa tacaala inay ilaahay jaar la noqotay codsatay fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir waa alla mtaqaanaa fii maqcadi sidqin waa maqcad iyo makaano fadhi run ah xaggee la fadhiisanayaa cinda maliik boqor agtiisa subxaana wa tacaala waa boqor awood leh waa boqor karti leh waa boqor sidii loogugu talagalay uu markaa kuu abaalmarinayo sidaa darteed walaalayaal jannada ma aha mid la soo koobi kara sifaadka ay leedahay waxaa loo baahan yahay qof walba caawa inuu niyadda gashto hawsha aad qabanayso hawl sahlan ma aha maalin walba gurigaagaad ka soo baxdaa 5 mar ugu yaraan masaajidka ilaahay baad imaanaysaa subxaana wa tacaala waa shaqaad ilaahay u haysa subxaana wa tacaala qof baad xumaan ku arkaysaa walaalow jooji waa hawl aad ilaahay u hayso meel bay kugu qoran tahay qof baad wanaag amraysaa qur'aan baad soo qabatay waad akhrisatay wax sahlan ha u malaynina dadka mu'miniinta u bishaaraysta mar allaala marka malakumuudku ku soo xaadiro yaa jannada bishaaradeeda loogu bilaabaa qofka mu'minka إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سررت ساريها ولما نفتحن والله بشارينا يا أسقو جوغا لين لوغو بشارينا يا هول بوقبتي ما أنتي أبلابتي أبا المركيسي maantuu u bilowday jazihiisii maantuu bilowday awaalmarkii ilaahay siin lahaa subxaana wa tacaala maantay u bilaabatay mushaharkii uu qaadan lahaa ina aladiina qaaluu rabbuna allah rabbigeen waa allah cid kaloon ka amar qaadanaynaa ma laha ilaahay ayaa waxa uu noo diray aan fulinaynaa rabbi mooye cid kaloon ku kalsoonnahay ma laha rabbi maahay cid kale oo aan ka kala saaranaynaa ma laha rabbuna allah uma istaqaamuu dabadeedna way ku toosnaadeen waxay ku toosnaadeen amarkii ilaa subxaana wa tacaala zalal wuu dhici karaa simbirraxasha way imaan kartaa bini aadam dhammaantii khataa mar allaala markay simbirraxdaan bay soo laabtaan markay qalad galaan bay tooba keenaan markay xumaan galaan bay ilaahay xusuustaan markay xumaan galaan bay xusuustaan jannadii wanaagga badnayd amay idin dhaaftaa markay xumaan galaan bay ka qoomameeyaan naartii xanuunka badnayd amaa laydinku ridaa markaasay ka soo laabanayaan isla markii way soo rujuucayaan uma istaqaamuu تتنزل عليهم الملائكة محال أرنيا ألا تخافوا ولا تحزنوا هعبصنين هنا مرقونين وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وعكب بشاري ستان جنة الذين يبوهي قفك مؤمنك واتبعيا قفك مؤمنك هلبو قبانيا قفك مؤمنك ودذانيا امتحانات إدباتوين فربضان بو أدونك الله كل ميا لكن وحبها وأركينا
wax dhibaatay leedahay ma laha. warkii maanta adduunka ku baahda jannaduu ku dhargayaa. warkii maanta adduunka ku arla'aada xulalkii iyo biladihii iyo dharkii xariirta ahay cagaarnaa buu rabbi u labisaya subxaana wa tacaala. warkii maanta dhibaataysnaa dhibka meeshaa buu ku hilmaamayaa uuna uga baxayaa. war qofkii maanta cadaadis iyo dhibaato ku jiray, islaamkaaga adkayso, diinta islaamka ku soco. ilaahay wuxuu ballan qaaday subxaana wa tacaala in jannada ballankeeda samaawaadkii arlada ay la eg tahay uu ku abaalmariyo. nebigu maruu ka sheekaynayay wuxuu yidhi waxaa ku dhex sugan maa laa caynun ra'at, waxaan weli indha arkin, walaa udnu samicat, dhegana aan maqlin, walaa khatara calaa qalbi bashar. marka waxaan indha arkin, dhegana maqlin, qalbi bani aadamna aan ku soo dhicin way adag tahay sidii looga sheekeeyo. laakiin maxay ku fiican tahay wafii dalika falyatanaafasi lmutanaafisuun, in la baratamo, in la tartamo. saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaati waalard. degdega buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. halla kala cararo, halla firxado. xaggee la ordaya? ilaa makfira, dembi dhaaf oo min rabbikum, iyo janno ballankeeda samaawaadkii arlada ay la eg tahay. yaa loo diyaariyey? yaa iskale? yaa lagu abaalmarinayaa? shalay waan tilmaannay markaad adduunka joogto gambaniga aadan u shaqaynin ma aad xaadiri karin xafiiska lacagta lagu bixiyo. laakiin maanta ka waran, ilaahayuu ugu talagalay uciddat lilmuttaqiin. muttaqiin baa loogu talagalay buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. aaway taqwadii, aaway alla ka cabsigii, aaway awaamirtii ilaah, aaway khayrkii, aaway wixii lagu dadaali lahaa, aaway shaqadii ilaahay noo diray subxaana wa tacaala. aaway ma ka soo baxnay mise waa la dayacay? walaalayaal aan dadaalno, waayo abaalmarka meeshaasuu jiraa. ilaahay abaalmarkiisa meeshaasuu yaalaa. qofka muttaqiga ah ee rabbi ka baqaa loogu diyaariyey. wa uslifat iljannatu lilmuttaqiin hayra baciid. maba ka fogeyn buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. waa la soo dhoweeyey jannadii. yaa loo soo dhoweeyey lilmuttaqiin hayra baciid. maxaa loo odhanayaa? haadaa maa tuucaduuna likulli awaabin xafiid. waa wixii loo ballan qaaday oo loo yaboohay awaab, noqosho badne. qof mar allaala markuu simbiraxasho yar ku dhacaa isla markii ilaahay u soo rujuuca subxaana wa tacaala. haadaa maa tuucaduuna likulli awaabin xafiid. nin awaab ah oo noqosho badan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. kii shahaadada watay ma aha, kii shahaadada kombiyuutarka watay ma aha, kii shahaadada meesha ugu sarraysay jaamacadda ka soo qaatay ma aha. haadaa maa tuucaduun lagama yaqaano meesha. maxaa laga yaqaanaa? taqwo. likulli awaabin xafiid, ilaalin badnaa xuduudda ilah subxaana wa tacaala. man khashiya araxmaana bilgayb. yaa loo diyaariyey? raxmaanka midka ka cabsaday, allaha naxariista badan asagoo qayb ah oo weligii la arkay subxaana wa tacaala. man khashiya araxmaana bilgayb wajaaa biqalbin muniib. wuxuu la yimid qalbi muniib ah, wuxuu la yimid qalbi noqosho badan, wuxuu la yimid qalbi ilaahay hor yaalla subxaana wa tacaala, wuxuu la hor yimid qalbi nadiif ah, wuxuu la hor yimid qalbi ila subxaana wa tacaala lagula fikiro wax allaala wuxuu asaga amray iyo wuxuu asaga abuuray. wajaءa biqalbin muniib. maxaa loo odhanayaa? udkhuluuha bisalaam. war soo gala, maanta badbaada ku soo gala, idinkoo bad qaba, idinkoo nabad qaba, idinkoon argagax jirin, idinkoo cabsi aan lahayn. udkhuluuha, soo gala bisalaam. dalika yowm اlkhuluud. waa maalintii waarida, lagaa bixin maayo. shaqada waa la yska ceyriyaa, ama mid kaa sarreeya markuu yimaado waa lagaa bixinaa, soo ma aha. kalaa xaasha lilah, ilaahay agtiisa ma taala subxaana wa tacaala. udkhuluuha bisalaam. dalika yowm اlkhuluud. lahum maa yashaa'uuna fiiha. shaqadii intaad shaqaysataa lagu siiyaa keliya, wax siyaadaa ma laha. marmar baaba iskaa wax u qabsay iyo canshuur la iska gooyaa. laakiin ilaah wuxuu yidhi lahum maa yashaa'uuna fiiha. wax allaala waxay doonaan baa la siinaa, waxay doonaan ayaa la siinayaa. waladaynaa masiid. waana loo sii kordhinayaa haddana. aaway dadkii rabay, aaway dadkii arrimaha iyo mushaarkoodii sidaa ahaa, aaway dadku ilaahay abaalmarkaa u diyaariyey subxaana wa tacaala. haddaba hala soo baraarugo, hala soo kaco. waan jiifnaa, sababtu waxay tahay welina looma sheegin baan filayaa, ama weli ma aanan arkin abaalmarkiina loogugu talagalay. shaqada ha la qabtay, ha la dadaalo, abaalmar wuu noo dambeeyaa. lahum maa yashaa'uuna fiiha waladaynaa masiid. agteennana waan ugu kordhinaynaa buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. qofka ahlu jannaha ah markuu sidaa u dhintay qabriga la dhigo,
qabriga inta uu ku jira bishaaradii labaad baa u imaanaysaa. markii koowaad way u timid intuu sakaraadka ahaa, maxaa loo yidhi wa abshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun. waa la soo qaaday qabrigii iyo ciilkii baa la dhigay. markii la dhigaa loo imaanayaa, su'aalooyin baa la weydiinayaa, su'aalihii buu ka jawaabayaa. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, madda albasar ayaa loo waasicinayaa, waxaa loo furayaa albaabkii jannada uu ku lahaa, waa la tusayaa, waa arkayaa. maxaa loo odhanayaa? mansilkaagii waa ka, meel allaala meeshii lagugu abaalmarin lahaa waata. asagoo saa u faraxsana albaab naar ah loo furayaa haddana, oo la leeyahay mansilkii aad naarta ku lahayd waa kaa. haddaad ilaahay caasin lahayd subxaana wa tacaala, haddaad ilaahay ku caasin lahayd, haddaad salaad ka tegi lahayd, haddaad aflagaada la imaan lahayd, haddaad muslimiinta dhibi lahayd, haddii qur'aanka aad ka leexan lahayd, haddii ilaahay diintiisii aad dhinac mari lahayd, meeshaasaad u dambayn lahayd. waxay u siyaadinaysaa farxad, waxay u siyaadinaysaa suruur, waxay u siyaadinaysaa khayr iyo wanaag. ina alabraara la fii naciim cala alaraa'iki yanduruun tacrifu fii wujuuhihim nadrat الnaciim yusqawna min raxiiqin makhtuum buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. dadka mu'miniinta ah, baariyaasha ah, ilaahay amarkiisii fuliya, rabbi u baari noqday. ina alabraara la fii naciim cala alaraa'iki yanduruun, waxay ka gordaabanayaan araa'igtii sariira korkooda buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. naciimay ku jiraan, way nimcaysan yihiin, barwaaqay ku jiraan. bedelna ahlu naarka ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala, way cunayaan zaquum ama طacaam afiim ah, ama waxay cunayaan shajara zaquum ah. intaa ka bacdi biyo kululna way cabayaan. laa yusminu walaa yugnii min juuc, mana ku cayilayaan, baahina ka tiri maayo. laba waxyaabood baa raashinka loo cunaa, sharaabka loo cabaa. inaad ku qawi yeeshood xoog ku yeelato, iyo in mataqaanaa jasadkaagu isbedelo. ayagu labadii iyo baahidiina ka tirtiri maayo, way cunayaan sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala. waxay cunayaan. dadka nooca ah dhibaato aad iyo aad u weyn. waanu arki doonnaa markii ilaahay jannada uu ka sheekeeyey subxaana wa tacaala, ayuu yidhi adalika khayrun nusulan am shajaratu zaquum. mar jannada qiimaha badan ee wanaagsan qof lagu abaalmariyey miyaa khayr badan, mase geedka zaquumo lagu magacaabo. ina jacalnaa fidata lilظaalimiin inaha shajaratun takhruju fii asli اljaxiim. waa geed jaxiime hoosteeda ka baxa. weli ma arkin geed ka baxa dab dhexdiisa, tinaarka jikamufaha geed ka soo baxa. geedku wuxuu u baahan yahay ciid wanaagsan, carasan, caramadow, biyo, cadceed yar uu helo. laakiin geedkan dhibka uu leeyahay fiiriya, wuxuuba ka dhex baxayaa buu dhahay ilaahay naarta gudaheeda. naartii buu ka baxayaa. geed naartii ka dhex baxay ka waran dadka la cunsiiyey. geed naartii gudaheeda ka dhex baxaya fii asli اljaxiim, طalcuhaa kaأnnahu ru'uusu shayaaiin. laamaha ka soo baxa iyo mirihiisa shayaaiinta madaxoodaad moodaa buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. annagu weligeen ma arkin ru'uusu shayaaiin, laakiin mar kastood maqasho waad ogaanaysaa, waad dareemaysaa wax xun inay yihiin. sidaa darteed buu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala, qofka muttaqiga ee ahlu jannaha ah, marka qabriga sidaa loo dhigo, naartaasaa la tusayaa oo la leeyahay wallah haddaad ilaahay caasin lahayd, meeshaasaa hoyadkaagu ahaan lahaa. jannadiina saasaa markaa loo tusay. maxaa soo haray? waa labo. markuu dhimanayna janna loogu bishaareeyey, marka qabriga la dhigayna waa kaasaa jannou markaa arkay. intaa wixii ka dambaysaa laga soo bixinayaa. mar allaala marka la soo bixiya, malaa'igta weli way la socdaan. laa yaxzunuhum اlfazacu اlakbar watatalaqaahum اlmalaa'ika hada yawmukum aladii kuntum tuucaduun. maxaa loo dhahayaa laa yaxzunuhum alfazacu alakbar? ummadda fazac bay ku jiraan, waa la argagaxsan yahay. ilan adduunyaa la raacay, ilaahay baa la iloobay, daaco allaa lagu socon waayey, khayrkiyaa laga leexday. maanta qiyaamaa la yimid, waa la argagaxay. waayo shalay ayay adduunka aamin ku ahaayeen, laakiin dadkii baqaayey, dadkii cabsidu ku jirtay, dadkii adduunka khoofku ku jiray, aad iyo aad u cabsanayey oo cabsidu ay ka badatay, waa ka tirtiray ilah subxaana wa tacaala. laa yaxzunuhum alfazacu alakbar. akbar ayuu ku tilmaamay, midkaan fasac akbar ah ma aha. haddii la argagaxo ugu dambayn xaggee la gaaraya? waa geeri. geerina waa meesha ugu dambaysa, laakiin meeshaan ma jirto. waa tan ugu weyn buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. watatalaqaahum almalaa'ika, malaa'igtii baa la kulmaysa. hada yawmukum aladii kuntum tuucaduun. waxaan fahmaynaa maanta inaanan anagu lahayn. daartaan waxay daar u tahay man laa daara lah, qofaan daar lahayn. war ha isku dhiganina. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay geed la habsadee laga rawaxay, geed la habsadee laga tegey, geed la habsadee laga dhaqaaqay. saa darteed daar ma ahan, waa daar loogu talagalay camal.
waa daar loogu talagalay sahay in la aruursado, waa daar loogu talagalay in ilaahay meeshii loo aadi lahaa loo sii maro. daar xubuur ma aha, daar suruur ma aha, daar farxad ma aha, daartii lagu farxayay ma aha walaalayaal. daartan waa daartii la camal qabanayay. maanta markay cadceeddu soo baxdo ay sii dhici rabtaan laga gaarsiiyaa. maxaadan qabanin maanta? maxaad ilaahay ku caasisay? maxaad ilaahay ku adeecday? maxaad janno u dhowaatay? maxaa naar aad u dhowaatay? maxaad ilaahay u tasbiixsatay? maxaad khayray samaysay? waa daar nafta lala xisaabtamo, waa daar laga daba socdo xisaabtan, waa daar la ogaanaya in abaalkeeda iyo miraheeda qiyaamaha la goosanayo. sidaa darteed baa loo odhanayaa haadaa yawmukum aladii kuntum tuucaduun. waa maalintii laydin yaboohayey. qiyaamaha markay soo istaagaan si sahlan ayaa loo xisaabayaa. sababta waxay tahay amar ilaahay bay fuliyeen, waxay u diyaariyeen abaalkooda inay qaataan. ugu horayntii gacanta midigta laga siinaya kitaabkooda, way sii dhaqaaqayaan. xaggay u sii socdaan? xaggee la aadayaa? jannada. miftaaxii way wataan. waa maxay miftaaxu? waa laa ilaaha ila allah. ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaayo ma jiro. way sii soconayaan. mar allaala markay u dhowaadaan, rasuulku muxuu yidhi zumrada iyo jameecada ugu horaysa ee jannada gelaysa suuradoodu waa suuradda habeen 14aad uu daycu yahay oo kale. quruxdooda, dhalaalkooda sida ay yihiin waa awal zumra, jameecada ugu horaysa oo yadkhuluuna aljanna. suurada iyo qaabkooda ay leeyihiin waa habeen 14aad ah oo bishu laylatulbadr ay markaa tahay 14aad. caddaanteedu aad u sarayso taasay gelayaan buu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam. waa la kaxaynaa, waa la wadayaa. wasiiqa aladiina taqow rabbahum ila aljannati zumaran xataa idaa jaa'uuhaa, ilaa ay tageen albaabka jannada futixat abwaabuhaa waaba lasii furfuray buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. bedelna ahlu naarka aayadda ka horaysay ilaah uu yidhi markay tagaan ayaa futixat abwaabuhaa, albaabeeda la furfurayaa. sababta waxay tahay waa dandarra iyo duri la dulaysanayo. qof inta martiya kuu yimid, gurigii aqalkii lagu soo dhowayn lahaa furihii la raadiye ka warrama, meeshuu taagan yahay. furihii baa la raadinayaa. yaa qaada kii yaraa, yaa qaada tii yarayd, waa laga dhex raadinayaa meeshuu taagan yahay. iyo marka albaabada loo furo, daaqadaha loo sii furo, gurigii loo carfiyo, wuxuu ku fadhiisanaa la hagaajiyo, isla markii uu yimaado lagu soo dhoweeyo. way kala ixtiraam fiican yihiin walaalayaal. dadka mu'miniinta waa la ikraamayaa, mu'miniinta waa la sharfayaa, mu'miniinta ixtiraam bay alla agtiisa ku leeyihiin. waa goormee? laakiin jazaa'uhum cinda rabbihim jannaatu cadnin tajrii min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha. way ku dhex waarayaan radia allaahu canhum waraduu canhu dalika liman khashiya rabba. waa markuu ilaahay ka cabsaday subxaana wa tacaala. goorme ikraamka iyo soo dhowayntaa jannadu ay jirtaa? waa qofkii ilaahay ka cabsaday, waa qofkii ilaahay taqwadiisa ku dadaalay, waa qofkii taacada ilaahay xoojiyey, waa qofkii awaamirta ilaahay ay la weynaatay ee ku socday, wuxuu ilaahay diiday ay la weynaatoo ka haray. qofka noocaasaa loola jeedaa. saa darteed way gelayaan buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam, jameecada ugu horaysa ayagoo saa u dhalaalaya. waxaad moodaa habeenka 14aadka kuwa ku xiga xidiga ugu iftiinka badan oo kalead moodaa buu yidhi nebiga. saasay ayaguna markaa u soo gelayaan. mar allaala markay meesha galaan oo jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay arkaan, loo tahniyeeyo, loo hambalyeeyo, khayr iyo wanaag iyo sharaf meesha ay ku gaaraan, waxay tilmaamayaan wax allaala wixii dhibaato ahaa, oo xanuun ahaa, oo kurbo ahaa, oo dayn ahaa, oo murug ahaa oo adduunka ku haysatay. dhammaan waa la wada iloobayaa. ma rabnaa wax la ilowsiiya jannada jidkeeda aan raacno. war maanta waa dhibtoonay, war maanta waa la murgay, war qof walba dhib buu sheeganayaa, war qof walba rafaad buu ka hadlayaa. warkii xoolaha lahaana maanta waa dhibaataysan yahay, warkaan xoolaha lahayna wuu dhibaataysan yahay. war tii taajiradayd maanta dhib baa haaya iyo kadeed, tii aan taajiradayn kadeed iyo dhib baa haaya. meel lagu istariixa ilaahay noo tilmaamay subxaana wa tacaala, meel lagu raaxaystuu ilaahay noo tilmaamaya subxaana wa tacaala. ilaahay asagoo noo tilmaamaya mar kale ayuu yidhi jannaatu cadnin yadkhuluunaha, waa jannooyin nagaadi ah, way gelayaan. yuxallawna fiiha min asaawira min dahabin, waxaa lagu qurxinayaa jijimo oo dahaba buu dhaha ila subxaanahu wa tacaala. waa la qurxinaya ahlu jannaha. war waa la soo shaqaystay, war camal baa la soo qabtay, war khayr iyo wanaag baa lagu dadaalay, war daacada ilaahay baa kor loo qaaday, ciyaar laguma helin. cabdullaahi ibnu cabbaas baa la tilmaamay maalin inuu safar aaday, habeen saqdhaxaa markii la gaaray ama bartamaha habeenka ayuu istaagay.
qur'aankuu ku dukanaya, dadkii way daalan yihiin, way wada seexdeen. wuxuu akhrinayay wajaءat sakratu اlmowti biاlxaqi dalika maa kunta minhu taxiid. wajaءat sakratu اlmowti biاlxaq, wajaءat sakratu اlmowti biاlxaq dalika maa kunta minhu taxiid. horayna magu socon karo, gadaalna ma aadi karo. yabkii waa oynaa. wajaءat sakratu اlmowti biاlxaq, wax sahlan ma aha. sakaraad baa yimid, guriguu soo galay. sakaraad baa yimid, sariirtuu ag taagan yahay. sakaraad baa yimid, xaggeebuu u socdaa? yaa ka celin kara albaabka? wajaءat sakratu اlmowti biاlxaqi dalika maa kunta minhu taxiid. yansij waa oyna cabdullaahi bni cabbaas. raggaasaa jannada aaday, raggaasuu ilaah siiye subxaana wa tacaala. aan dadaalna walaalayaa, meeshoodii maba gaari karnee, bal qalbigeenna habeen iyo maalin bal ha ku jiro. markaan mushaharaadka qaadanayno, markaan adduunka ku dhex jirno, markaan gawaaridaha cadcad saarannahay, bal inay wax ka weyn jiraan, wax ka qiimo badan inay dambeeyaan, wax ilaahay abaalkiisa ahoo ili araganoo dhegi maqaloon qalbi bani aadam aan ku soo dhicin inay jiraan, bal qalbigeenna ha ku jira mar walba. taasaa muhiimoo markaa lagama maarmaan ah. rasuulka sala allahu calayhi wasalam asagoo sii tilmaamaya markay ahlu jannuhu jannadu saa u galaan, ayaa wuxuu tilmaamay mar allaala marka jannada saa loo galo inaysan ahayn meel lagu dhibtoonaayo. ma saxaroonayaan buu yidhi, kaadin maayaan, candhuuf ma laha, ma xaaqatufayaan, shalladay ku shallaysanayaan. waa dahab buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. waa shallada lagu shallaystay. ma la gaarin dharkii waxyaabihii kale iyo wixii armaajada noogu jiray iyo wixii noo kaydsanaa. shalluun baan maraynaa. waa dahab, sida rasuulku sheegay sala allahu calayh wasalam. maalin maalmaha ka mid a nin gaal ah u yimid, ama waxaa laga soo qabtay dhar aad u qurux badan. saxaabadu intay la tacajubeen yay gacanta saa ugu salsalaaxayaan. ma la yaabantihiin buu yidhi, mindiilka sacad ibni mucaad jannada uu ku leeyahay khayrun min addunya wamaa fiiha. mindiil waa kan afka lagu tirto markaad maqaayadda wax ka cunto, marka afka lagu tirtiranaayo o aad ku ridaysa meesha qashinka, ee sacad uu leeyahay adduunka iyo waxaa dul saaranba ayadaa ka khayr badan buu dhahay sala allahu calayh wasalam. taasaa ka khayr badan. shalana loogaga bilaabay. maxay noqotay dahab? waxa kale yaa sheegi kara, waa waxaan indha arkin, dhaga maqlin, qalbi bani aadam aan ku soo dhicin. war aqriya haddaad doontaan, falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyunin jazaan bima kaanuu yacmaluun. aqriya aayadda. naf og ma jirto wixii loo keydiyo quratu acyun ah, in qaboobsi ah, waa abaal ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. rasuulku wuxuu tilmaamay oo kale sala allahu calayhi wasalam, markay jannada saa u galaan oo khayrka iyo wanaagga iyo sharafta iyo karaamada ay helaan, oo dhibaato iyo tacab iyo suuli iyo waxyaabo kale laga ilaaliyo, raashinka ay cunayaan iyo sharaabka ay cabayaan wuxuu uga soo baxayaa sida carqigoo kale, dhididkoo kale ayuu uga soo baxayaa. dhididkii baa lasii tilmaamay sida miskibuu u soo carfaya buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. karaamo, waxa naga fakanaya iyo waxaan u cararayna wax isleh ma aha. waxana dhaafay iyo waxa aan gacanta maanta ku hayna wax isleh ma aha. laakiin gaarid baan leenahay inta la nool yahay. in allaala intay xayaata nagu jirta fursadaan haysanaa. wallaahi dad baa caawa fursadda annaga aan haysanin. dad baa jeclaan lahaa caawa inay adduunka yimaadaan oo masaajidka qayb ay ka istaagaan, laba ku dhihi maayo, hal rakaca keliya ay tukadaan oy ilaahay aadaan subxaana wa tacaala. wallaahi qolaa jeclaan lahayd inay yimaadaanoo subxaana allah hal xaba keliya inay dhahaan, haddana aakhira u noqdaan. waa dadka qubuuraha ku jira. laakiin hayhaata hayhaat, wax soconaya ma aha. aaway fursaddeennii walaalayaan, aaway wanaaggeennii walaalayaan. wallaahi way jeclaan lahaayeen inay masaajidka yimaadaan. wayaa la isdhaafsiinin fursadda. jannadaas ballarkeeda samaawaadkii arlada ay la eg tahay buu ilaahay diyaariyey subxaanahu wa tacaala. karaamo iyo qiimo iyo sharaf baa lagu gaaraa. qof allaala qofkii mu'min ah oo ilaahay aamina oo daacada ilaahay ku socda oo ogaada fursadda maanta uu haystoon dayicin, ninka noocaasaa liibaanaya. faman zuxzixa can innaar waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu اddunya ilaa mataacu lguruur. qofkii naar laga fogeeyo oo janno la geliyo wuu liibaanay buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. wama alxayaatu اddunya ilaa mataacu lguruur. raaxo kadaa maahe wax kale ma aha, wax ay tahay ma laha. dadka ahlu jannaha wanaaggaasuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. khayrka iyo barakada iyo wanaaggaasuu ilaahay siiyey, kuna abaalmariyey. idan aan aad ugu dadaalno, ilaahayna aan ka baqno subxaana wa tacaala. nebi ibraahim aad buu u raadiyey jannada, ilaahayna waa ka baryey in lagu abaalmariyo. ilaa asoo ka sheekeynaya wuxuu rabbi hablii ilaahu mulki ii hibay waalxiqnii bisaalixiin.
saalixiintana ilaahayow iwaafaji wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin carab run ah ilaahayow ii yeel oo dadka dambe ay ammaanaan khayr iyo wanaag maxaa lagu ammaanayaa hanaa'an xasan ammaan wanaagsan ahlu tawxiid buu ahaa aabbihii tawxiidkuu ahaa rabbi dartii baa dab loogu riday alla dartii baa loo dhibaateeyey alla dartii baa gurigiisa looga bixiyey alla dartii buu aabbi u yidhi waan ku rajminayaa ilaahayow ii sameey buu yidhi lisaana sidqin fi laakhiriin wajcalnii min warafati jannat naciim ilaahu iga dhig mid jannatu naciima dhaxla ilaahayow jannada naciima mid dhaxla iga dhig waqfir liabii ilaahu aabbahay iska cafi buu yidhi ilaahu aabbahayna isaga dembi dhaaf waqfir liabii wuxuu ka mid ahaa dadka daaliinta ah wuxuu ka mid ahaa aabbahay dadka dhumay ilaahayow ha ihoojina yowma yubcahuun maalinta laysu soo bixinayo yowma laa yanfacu maalun walaa banuun maalin ay cilmo iyo xoolo aynan wax taraynin ilaa man ata allaha biqalbin saliim maxaa ku xigay wauslifat iljannatu lilmuttaqiin waburizat iljaxiimu lilghaawiin jannadana waxaa loo soo dhoweeyey muttaqiinta haawiintii iyo dadkii dhunsanaa ee adduun keliya raacay oo ilaahay ka fogaaday oo salaadaha ka tegey oo khayrkii wanaagga aan samayninna waxaa loo soo muujiyey haawiin waa jaxiimo waburizat iljaxiimu lilghaawiin markaasuu odhanayaa ilaahayow iga dhig mid ka dhaxla jannat naciim waqfir liabii inahu kaana min addaaliin aabbahay kuwa dhunsan buu ka mid ahaa aabbahay ilaahayow shirki buu ku jiray ilaahu aabbahay nin wuxuu ahaa aan dadka fiican ka mid ahayn allow iska cafi ilaahayow iskaga saamax aabbahay ha i hoojin maalinta laysu soo bixinayo rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayh wasalam aazar baa la keenayaa waa ibraahim aabbihii maalinta qiyaamaha wuu arkayaa ibraahim aabbihii oo naarta loo sii wado la sii kacaynayo maxaa ka murugo badan ilaahayow aabbahay waayo buu leeyahay miyaanan kaa codsan inaadan ihoojinin yowma yubcahuun maalinta laysi soo bixinaayo ilaahayow aabbahay oo naar loo wado rabbiyo wuu calacalayaa waa la rogayaa isagoo dhanba odaygii riwaayadaha qaarkood waxay leeyihiin kabshoo kale laga dhigayaa ama waxaa laga dhigayaa sidii di'bi ama waraabo oo kale ibraahiimo ma aabbahaabaa laa buu leey kan aabbahay ma aha asoo faraxsan buu ilaahay jannada geynaya subxaanahu wa tacaala haddaba qofka muslimka ah taacada ilaahay ku dadaalay haddii uu la dhasho daalim iyo hadduu daalim dhalaba waxa maaha qof kasta wuxuu asaga qabsado yuu ilaahay u qabsanaya subxaanahu wa tacaala xaaladda waa in sidaa loo ogaadaa ilaahayna laga cabsadaa subxaanahu wa tacaala haddaba jannadii markay saa u galeen dadkii muslimiinta ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaadayaa yaa ahluljanna munaadi baa naadinaya waxaa idiin sugnaatay inaad noolaataan oo aadan weligii dhimanin waa bishaaro waad noolaanaysaa weligaa dhiman maysid daartii halkaa ku tiile ninkii markuu dhammeeyey dhismihii u dhammaaday istambarkii iyo rinjigii la wada mariyey waxyaa kasta lagu kala xihay furaha lagu sallimay ayuu dhintay laakiin qiyaamaha maxaa la leeyahay yaa ahluljanna ahluljannay waxaa idiin sugnaaday inaad noolaataan oo aadan weligii dhiman buu yidhi ila subxaana wa tacaala waxaa idiin sugnaaday inaad nimcaysataan oo aadan weligii baas arkin biyo la'aan iyo abaar iyo dhibaataa la sheeganayaa mashaakil adag ayaa jira jannada marka la taga laa maqtuucatin walaa mamnuuca go-id iyo mamnuuc labadaba ma jira buu dhaha ila subxaana wa tacaala laakiin shaqay u baahan tahay laakiin dadaal bay u baahan tahay shaqadeeduse ma cusla ay waa sahlan tahay fasanuyasiruhu lilyusra ilaahay baa tilmaamay subxaana wa tacaala jannada camalka lagu gaaro iyo camalka naarta lagu gaaro haddii la fiiriyo camalka naarta lagu gaarayaa sacab ahoo dhib badan ilaahay baa ka sheekiyey subxaana wa tacaala hal ataaka xadiidu lghaashiya wujuuhun yowmaidin khaashica caamilatun naasiba way camal qabatay wayna ku dhibtootay taslaa naaran xaamiya maxay gashay naarkoodu waa inaad wax xaddaa waa inaad xoogtaa waa in lagu qabtaa waa in lagu garaacaa waa inaad rafaad martaa waa inaad dhibaato ka dhex baxdaa waa inaad caawo dhan qaylaad meesha la fadhisaa waa in adoo dhan aad isku dardarsantaa waa inaad qamri cabtaa waa inaad waxaad sheegaysa wax kale kala ogaan weysaa waa in sacarada iyo kaada iyo kaa mataqaana ceshan weysaa waa dhibaato fara badan dhibaato aad iyo aad u weyn caamilatun naasiba way camal qabteen wayna ku dhibtoodeen buu yidhi ilah subxaana wa tacaala camalka jannadaa kuu soo haray aroortii markaad toostoo dikri ilaah ku kacday subxaana wa tacaala adii soo tahiray oo issoo nadiifiyoo cadayday yaad beydka ilaahay imaanaysaa oo udgaaya subxaana wa tacaala fasanuyasiruhu lilyusra way sahlanayd ilaahay baad baryaysaa kitaab baad akhrisanaysaa qur'aan ah gurigaagii baad ku laabanaysaa shaqo xalaal ah haddaad leedahay baad u kalahaysaa adigoo ilaahay dikrigiisa ku socda subxaana wa tacaala waa lagu ixtiraami mar allaala marka
gurigaan aad ka baxayso ayuu yidhi nebiga sal alla calayh wasalam oo axadkood uu yidhaahdo bismi illaah tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ila billah shaydaanka kale wuxuu u odhanayaa warseed u baadiyeyn kartaa nin la hanuuniyey oo la ilaaliyey oo la dhowray shaydaankana wuu ka fogaanayaa waa kaa dhaqaaqayaa dikri baad ku socotaa wixii ilaahay kuu soo qoondeeyo kuu soo qadaro yaad raalli ku noqonaysaa ha kuu badnaado ha kuu yaraado laakiin maanta qanaaco ma jirto qanaacada waa lagama maarmaan shimbirka markuu ka hadlayay rasuulka sala allahu calayh wasalam muxuu yidhi low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kama yarsuqu tayr haddaad tala saarasho dhab ah ilaahay aad talada u dhiiban lahaydeen waa idin quudin lahaa sida shimbirka loo quudiyo oo kale subaxii hore ayuu ka baxayaa gurigii uu ku jiray qabuulkiisii meeluu wax ma og yahay ma leh mu'asase ma aadayo dukaan ma hayo meeluu ka shaqeeya ma leh waa iska baxaa waa asoo calooshiisu ay duuban tahay wuu soo noqonayaa asagoo bataana asagoo cayilan asagoo calooshiisu ay buuxdo annagana salaada subax 6da saan u istaagna dukaamada gariibu saan u leenahay oo meesha loo leeyahay xataa haddii inta yare ilaah subxaanahu wa tacaala na siiyey oo noo qoonday aan ku raali noqon lahay waxbay noqon lahayd aan badhahna gariibda meeshaan istaagno inta yare ilaahayna siiyey haddaan dhihi lahayn alxamdulillah way fiican tahay weydii bal dadka suuqa jooga ka warama suuqa zifti uu leeyahay maanta weligii waa zifti ama ha loo badiyo ama ha loo yareeyo weligii asoo ka ed sheegana wax kale la arki maayo ka warama shimbirka walaalayaa camalka jannada aad buu u qiimo badan yahay waa la sahlan yahay xaaladaasaana loogugu talagalay inaan la nimaado ilaahay asagoo tilmaamaya sidoo kale jannada muxuu yidhi ina asxaaba aljannati alyawma fii shuqulin faakihuun shuqulka muxuu yahay ma aha shaqadii adduunka la dhigtoonayo waxay ku shuqloon yihiin inay cunaan inay cadaan inay jimaacaan inay raaxaystaan inay isboqboqdaan ina asxaaba aljanna alyawma fii shuqulin faaki'uun hum waaswaajuhum fii dilaalin cala alaraa'iki muttaki'uun ayaga iyo siwaashtooda iyo xaasaskooda xarar bay ku jiraan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala fii dilaalin cala alaraa'iki muttaki'uun meeshaasay ku dangiigayaan halkaasay ku jiraan waxay ku leeyihiin wax allaala waxay wacdaan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala walahum maa yaddacuun iyo waxay markaa u yeertaan waa asxaabu aljanna saasuu ilaahay uu kiraamaya subxaana wa tacaala sharafta iyo qiimaha iyo karaamadaasuu ilaahay siiyey haddaba qofka mu'minka waa inuu meeshaa ogaadaa meesha ayaan laga daymo la'aanin meeshaa qof walboo qalbigaaga geli war meeshaa ogow meesha maanta loo shaqaysanayo inay meeshaa tahay inay qiimaha iyo wanaagga ilaahay uu dhex yeelay subxaana wa tacaala ahlu jannuhu mar allaala markay jannadii galaan sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala yuxallawna fiiha min asaawira min dahabin walu'lu'an walibaasuhum fiiha xariir waqaaluu alxamdu lilaahi aladii ilahay bay u mahadinayaan ilaahay baa mahad iska leh waqaaluu alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan murugtii naga bixiya waa la murgaysan yahay cadceeddii baa meeshaan u dhow walaalayaal waa la wada qaawan yahay wax dhar wataa ma laha diinaarkii iyo dollaradii aan wadanay adduunkaa looga soo tego waa la gacan maran yahay iska daa wax kale dacas lama wata buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam dacas qof xidhan ma laha oo meesha istaagaya sidaa darteed bay ummaddii argagax ku jiraan ahlu janno waqaaluu alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan allihii murugta naga bixiyey ina rabbanaa lagafuurun shakuur rabbigeen waa gafuur shakuur ah waa allehe alladii axallanaa daara almuqaamati min fadli waa allaha nagu dejiyey daarta nagaadasha waa daar muqaamo ah waa daar nagaan ah maxay ku galeen ma dhihin camalkeena ma dhihin salaadii waad soo kacday 7 habeenimo waad soo aaday masaajidka waad soontay dhihi maayaan soonkeenii salaadeenii allihii nagu geliyey waayo akhlaaq xum waa edib aan lahayn waa maqaana waa su ladab waa qilat اladab saa darteed bay yidhaahdeen aladii axallanaa daara almuqaamati min fadlihi fadligiisa nagu geliyey ilah subxaana wa tacaala laa yamasunaa fiiha nasabun walaa yamasunaa fiiha luguub daalnana taaban maayo dhibnana taaban maayo caadoo dhan markaad suuqa jirto waad rafaadaysaa soo maaha markaad timaado ma socon kartid cishaha laga yaabaa yaa allah inaad ku tukato xagga ma jirta buu yidhi ilah subxaana wa tacaala mid kasta ee ayaga ka mid ah zawjataan laba xaas ayuu leeyahay buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam wa fii riwaaya 2 iyo
70 xaas ayuu siinayaa qof kastoo iimaan leh oo jannada galay ilaah subxaanahu wa tacaala. waxaa macquula in la kala badbadan yahay, waxaa macquula laba ninka ugu yar inuu haysto, waxaa macquula laba kuwa adduunka inay yihiin 70 xuuralcayntii, ama laba ay yihiin xuuralcayntii 70 kuwii adduunka. intaasoo dhan baa lagu siinayaa. ilaahay aduu kugu talagalay. nin baa u yimid nebiga, rasuulkii allow 172 xaas ninka keligiisa wuu awoodi karaa. nin kastoo idinka mid ah 100 rag awoodoodu ilaahay siinayaa buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. waa xuur lacayn. yaa iskale yuu ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala rijaal, yuu ugu talagalay rag ilaahay aaminay subxaana wa tacaala. yaa loogu talagalay gabdhaha cadcadkae indhaha waasica ah. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, waxay odhanayaan naxnu naacimaad, ayagoo jannada ku jira. annagu kuwa nimcaysan baan nahay, baas arki mayno. khaalidaad baan nahay, dhiman mayno. say u tilmaamayaan khayr iyo wanaag waxaa gaaray ninka noo sugnaaday, asagana aan u sugnaanay. aswaaj ayaa nahoo waxaana loogugu talagalay rijaal akraam oo karaamo leh, oo sharaf leh, oo khayr leh. sidaa darteed baa xuuralcaynta wanaagga rasuulka uu ku tilmaamay inay yihiin gabdho xuuralcayn ah, oo xusnuljamaal ah, oo qurux wanaagsan leh. dharka ay wataan waa xariir, hadday ayagoo saaran baad jasadkooda ka arkaysaa. hadday iska qaadaanna rasuulku wuxuu yidhi lugtooda dhuuxa ku jiraad arkaysaa min alxusni, qurux daraaddeed buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. ilaahay asagoo tilmaamaya wuxuu yidhi fiihinna qaasiraatu طarf lam yadmithunna insun qablahum walaa jaan. waa gabdho buu yidhi qaasiraatu طarfi, araggooda gaabiyey. rag kale u indha taagi maayaan, meel kale kaa milicsan maayaan. maseer iyo qayla ma laha, guryan iyo waxaa dhammaaday ma laha, mashaakil iyo dhib ma laha. ka baqi maysid caawo qaylo iyo waxyaabo kale. waa dumar buu yidhi qaasiraatu طarf lam yadmithunna insun, insi uusan taaban hortooda walaa jaan. naagaha xuralcayntae jinnigana jinka ma taaban, kuwa insigana insi kama taabanin. waa gabdho qayrkaa leh, hal tin ayagu ay leeyihiin. masarka ay saartaan adduunka haddii la keeno cadceedda nurku wuu ka tegayaa. aaway raggii shaqeeyey, war aaway waxyaabaha qarsoon walaalayaal ee ilaah subxaanahu wa tacaala uu noo diyaariyey. gabdha noocaas ah waaye. walahum fiiha aswaajun mutahara, gabdha aswaaj oo daahir ah ayuu ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala. maxaa laga dahiray nifaas, maxaa laga dahiray xayd, maxaa laga dahiray wasaq, maxaa laga dahiray candhuuf, maxaa laga dahiray injir, maxaa laga dahiray wax walbo qadir ahoo ikhtidaar ahoo bani aadamku u xumaysto. yaa iskale laakiin raggii muslimiinta ah aawey, war dhallinyaradii aawey. waxay ka daba cararayaan waxaan qiimo lahayn, waxay ka daba ordayaan waxaan faa'iida lahayn, waxay ka wad habeen iyo maalin taacadii ilaahay iyo diinta ilaahay ay uga seegeen. ayadoo salaada makhribka la tukanayo yaad arkaysaa wiilka dhallinyaraha ah inuu meeshaa gabar ku sugaayo. xuuralcayn walaalayaal, gabdhahaasuu ilaahay diyaariyey subxaana wa tacaala. gabdhahaasuu ilaahay diyaariyey oo khayr iyo wanaag ugu diyaariyey. gabdhaha noocaas ah sharafta iyo wanaagga ay leeyihiin. ilaahay maruu tilmaamaya wuxuu yidhi waxuurun ciin ka amhaali lu'lu'i lmaknuun. weli ma la tilmaamin hal gabar oo gabdhaha adduunka joogtoo nebiga uu yidhi ama ilaah uu yidhi gabadhaasay la eg tahay ama la mid tahay xagga qurux ahaan. waa la tartamaa maanta adduunka, maalinta quruxdaa jirtaa. ma jirta hal gabar ama hal naagoo adduunka joogtoo nebiga ku tilmaamay qurux ahaan. mar wuxuu noogu tilmaamay ka amhaali lu'lu'i lmaknuun, mar wuxuu ku tilmaamay kaannahunna baydun maknuun, waa ukun habaaska laga ilaaliyey. mar wuxuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala kaannahunna alyaaquutu waalmarjaan. in waxaa lagu miihaalo maahane mid u dhigantaayi ma jirto. saa darteed buu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam, naag adduunka joogta ninkeeda adduunka kuma dhibto. hadday dhibto sawjadii xuuralcaynta ahayd ee jannada uu ku lahaabaa soo hadlaysaa. waa mar walbay dhibaataynayso. markaasay leedahay laa tu'diihi qaatalaki illaah, naa ninka hayga dhibin allah ku duleeye. laa tu'diihi qaatalaki illaah inamaa huwa cindaka dakhiil. dakhiil buu ku yahay. dakhiil waa maxay? waa koyto, martida markuu kuu yimaado in badan kuu joogi maayo. qolbaa inta joodar loo dhigay 3 habeen kadib uu tagaa. saasuu kuu yahay. yuushaku an yufaariqa ilayna, degdeg buu annagu noogu imaan doonaa. annagaan naqaansaan ula mucaamaloonayno, annagaan naqaansaan u soo dhowaynayno, annagaan naqaansaan ula dhaqmayno. ragga saasaa loo odhanaya. dulqaata idinkana ogaada rabbi ka cabsada subxaana wa tacaala. mar walbo ay kaa gardaran tahay, mar walbo ay dulmi kugu wado, mar walbo oo dhibaatay mashaakil ay ku saarto oo ay ku dhibtay ku cadaadisay mashaakil ku gaarsiiso, waa loo hinaasaa. kor baa lagaala soo hadlayaa wa anta laa taclam, adigu ma ogid. laakiin waa inaad niyadda ku jirtaa, waa in qalbigaagu saa ahaadaa. wallahi wuu kuu fududaanayaa, masaa'ibteedaa kuu fududaanaysa.
dhibkeedaa kuu fududaanaya. dhowaan buu noo imaanayaa baaba la yidhiba. hadalku meeshuu ku dhammaaday. dhibka ka daa, ha naga dhibin. mashaakilka ka daa, waxyaabaad ku samaynaysa ka daa. bacdamay sidaa tahay walaalayaal, jannada khayr iyo wanaag fara badan baa ku jira. jannada waxyaabaha ku jira waa wax aad iyo aad u qiimo badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr fara badan iyo wanaag fara badan buu ugu talagalay. ahlu janna markay jannada galaan, ahlu naarkuna ay naartu galaan, munaadi baa naadinaya. muxuu odhanayaa yaa ahlaljanna, war ahlu jannoy, ilaahay ballan ayaad ku leedihiin. inna lakum cinda allaahi mawcidan, war ilaahay ballan baa idin dhex taala idinka iyo asaga. war ballan baa ilaahay idin dhex tiilay, wuxuu doonayaa inuu idin oofiyo. hadda ahlu janna way yaabayaan. ahlu janno oo janno ku jiray, oo xuralcayn arkay, oo khayr ku dhex sugan, oo wanaag ku dhex sugan, oo amar ilaah fuliyey, oo khayr iyo wanaag iyo baraara ku jiraa la leeyahay, ballan ilaahay idinkugu talagalaa laydin oofinayaa. maxay odhanayaan? maxaa waaye ballanta? wamaa hu, miyaanan indhaheena wejigeennii la caddaynin? miyaanan ilaahay miisaankeenii cuslaynin subxaana wa tacaala? miyuusan naartii xanuunka badneed ilaahay naga badbaadinin? waxa kale ee aan helaynaa muxuu yahay? nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, fayakshif, ilaahay wuxuu furayaa sitriga iyo asturka u dhaxeeya ayaga iyo asaga subxaana wa tacaala. waaladii nafsi biyadihi, macbuudka xaqa ah ee nafsadayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartuu yidhi nebiga, ma jira shay ay kaga jecel badan yihiin aragtida rabbi subxaana wa tacaala. ilaahay aragtidiisa waxay kaga jecel badan yihiin ma laha. markuu ilaahay kashafka saa u faydo oo ay arkaan oo ilaahay ay u jeedaan subxaana wa tacaala, wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira, rajiyaalo maalinta qiyaama way ifayaan, ilaahayna eegaya subxaana wa tacaala. yaa soo haray mujrimiintii, daalimiintii, kuwii wejigoodii aan ku sujuudin oo ilaahay bikayrkii ugu sujuuday amase diiday wanaaggii, indhahoodii xumaan iyo wuxuu ilaahay diiday u adeegsaday. kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuuna, waaba laga xijaabayaa. ilaahay waaba laga xijaabaya subxaana wa tacaala. marka laga soo bixinaya qabrigaba ilaah wuxuu tilmaamay, yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdan wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirdan. ayagana ayagoo oomanoo xerxeran oo la jiidaayo yaa jahannamo la aadin buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. haddaba walaalayaal, hawsha howl sahla ma aha. janno fudud ma aha. ilaahay saasuu ugu qaadaya subxaana wa tacaala. jannada yaa iskale liman ataaba alkalaam, war qofka hadal fiican laga helo, hadal fiican hanala ka helo. war hadalkeena khayr iyo wanaag ha ahaado. war hadalkeena wax ilaahay raalli ka noqonaya ha ahaado. war maalaayacniga aan iska yarayno amaan iska dayno. war wax xasanaadka aana loogugu qorin aan iska dhaafno. liman ataaba alkalaam, oo tacaamka quudiyey, raashinka dadka siiyey, sida rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. wabaata qaa'iman wannaasu niyaaman, habeenkii baryi asagoo taagan. muxuu la taagan yahay? ma jiran yahay? muxuu la taagan yahay? xanuun ma ahaya? maxaa istaajiyey? waxaa istaajiyey tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan waطamacan wa mima rasaqnaahum yunfiquun. wannaasu niyaam buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. dadkan ay markaa hurdayaan. bacdamay xaaladdu sidaa tahay walaalayaal, khayrkii wanaagga aan ku dadaalno. in allaala inta hadal fiican laga helay, طacaamka bixiyey, sidii hadda aan tilmaanay, ilaah muxuu yidhi, wayuطcimuuna الطacaama calىa xubihi miskiinan wayatiiman waasiiran. way bixinayaan طacaamka, ka ay qashinka u wadaan ma bixiyaan, midka la daadin raba ma bixiyaan. wayuطcimuuna الطacaama calىa xubihi, maca xubihi, midka ay jecel yihiin yay siinayaan, miskiinan wayatiiman waasiiran. oraahdoodu maxay tahay? inamaa nuطcimukum liwajhi اllah, ilaahay dartii baan idiin quudinaynaa, laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura, inaa nakhaafu min rabbina waistaagii. ilahay bay ka cabsanaya subxaana wa tacaala. inaa nakhaafu min rabbina, rabbigeen waxaan uga cabsanaynaa yowman cabuusan qamtariiran. maxaa lagu abaalmariyey? fawaqaahum allahu shara dalika alyowm, shartii maalintaa jirtay buu ilahay ka ilaaliyey subxaana wa tacaala. walaqaahum nadratan wasuruuran wajazaahum bima sabaruu jannatan waxariira. jannatan waxariiran, janno iyo xariir buu ilah ku alaabaayey subxaana wa tacaala. muttaki'iina fiiha cala alaraa'iki laa yarawna fiiha shamsan walaa zamhariira, kulayl iyo qabowba arki maayaan.
wadaaniyatan calayhim dilaaluha wadullilat qutuufuha tadliila. saasaa loogu soo dhoweeyey miraha jannada. way u dhowdahay. hadduu istaago waa la eg tahay, hadduu fadhiisto way la eg tahay, hadduu jiifto waa la eg tahay. wadullilat qutuufuha tadliila. tadliil baa loo soo dhoweeyey bu ilah subxaana wa tacaala. ilaahay waa u soo duleeyey. ayadoo saas ay tahay ayaa haddana ciyaal dawaafaya sida ilaahay sheegay subxaana wa tacaala. ilmaa ku wareegaya, way ku dhex dawaafayaan, way ku dhex wareegayaan. maxay la dhex wareegayaan? waxay la dhex wareegayaan sida ilaah tilmaamay. wayatuufu calayhim wildaanu mukhalladuun. waa ilmo la waariyey biakwaabin waabaariiqa waka'sin min maciin. iyo galaas qamreed oo il xaggiisa ka ahaatay. awa dadka qamrada laga kari la'yahay. nebigu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam, wallaahi qofkii cabaa oo daa'ima oo ku dhinta oo aan ka toobakeen inuusan cabayn qamrada jannada. jannada qamradeeda ma cabaysid. jannada qamradeeda way macaan tahay sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala. baydaaa ladatin lishaaribiin. way macaan tahay, dadka cabayay u macdahay. laa fiiha gawlun walaa hum canhaa yunsifuun. maanta markaad ka soo cabta kalaadka ood ka soo baxdo waa lagu soo turiyaynayaa ciyaalka, waad dhacdhacaysaa. gaariga albaabkiisa ma furi kartid waa markaad soo cabto. waxaad tahay adoo dhanba qof si kale ah, waxaad tahay mujrim, waxaad tahay qof ilaah ka fog subxaana wa tacaala. laakiin jannada markaad qamre ku cabto laa fiiha hawl, wareer ma jiro. walahum canha yunsifuun. mana caqli baaba'ayaan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. jannada maalkeeda maxaa ka mid ah? maxaa ku dhex sugan? min maa'in hayri aasin, biyo aan isbedelayn. waanhaarun min labanin lam yatagayar طacmu. webiyaalo caana ah oo aan isbedelayn buu yidhi ilahay dhadhankooda. waanhaarun min khamrin ladatin lishaaribiin. dadka cabay way u macdahay buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. waanhaarun min casalin musafaa. waa webi ama oo casal malab musafi ah. imaar kastay ku leeyihiin. makfiro oo ilaa xaggiisa ka ahaatay. kaman huwa khaalidun fi nnaar. war nin naarku waaraay ma isku mid baa buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. war adoo qamradaa cabay, adoo caanahan doorsoomi, war adoo biyaha fiican, war adoo khayrka iyo makfirada imaar kasta lagu siiyey, ma la mid baa kaman huwa khaalidun fi nnaar. wasuquu maaan xamiiman. biyo kulul la cabsiiyey buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. faqataca amcaa'uhum. mindhiciradooduna ay go'go'een oo ay bannaanka ku soo daateen buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. aljazaau min jinsi alcamal. qofka wuxuu camal qabto ayuu ilah subxaana wa tacaala uu ugu talagalaa. qofka wuxuu camal ahaan u qabto ilaahay ku abaalmariya subxaana wa tacaala. bacdamaa sida ay tahay muslimiinta ha dadaalaano, ilaahayna ha ka baqaano subxaana wa tacaala. hana lagu dadaalo wax allaala waxa khayrka iyo wanaagga gaarsiinaya. marka jannada la galo oo ahlu jannuhu jannadu ay ku nimcaystaan oo khayrka iyo wanaagga ay helaan, ilaahay wuxuu u tilmaamay wayatuufu calayhim wildaanun mukhalladuun. ilmo la waariyey. idaa ra'aytahum, wiilasha shaqaala ay kuu shaqaynaya haddaad aragto, xasibtahum lu'lu'an manhuura. waxaad u malaynaysaa luu la firdhiyey. say u badan yihiin, ay u qurux badan yihiin. waa kii qaadimka ahaa. shaqaalaha iyo ninka loo shaqeeya isku si ma aha, isku labis ma aha, isku qaad ma aha, isku socod ma aha, isku nolol ma aha. saa darteed maanta kii shaqaalaha ahaa ee shaqaynayo ilaa wuxuu ku tilmaamay luul manhuur ah. ka warramaka loo shaqaynaya soo noqon doonaa maa laa caynu ra'at walaa udunun samicad walaa khatara calaa qalbi bashar. laguma sifayn kara saad noqon doontee dadaal. laguma sifayn kara saad noqon doonto kii kuu shaqaynaayey ayaa la sifeeyaa luul lagu tilmaamay. oo ruuxdiisa iyo bidhaantiisii badnaantooda adigii lagu shaqaynaya waa min baabi awlaa. firaashkaad ku seexanayso ilaahay ka hadlay subxaana wa tacaala. waxa ay ku dhex sugan yihiin firaashyo buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. bataa'inuhaa min istabraq. biطaa'in meesha gudaha ah waxaa laga geliyey xariirta adag. istabraq waa xariirta adag ayaa meesha laga geliyey. maanta maxaa la geliyaa? marada kore way qurux badan tahay. waxa hoos ku jiran ama waa usbooyin ama waa cudbi ama waa suuf ama waa qumbe, soo maaha. laakiin jannada waxa hoos la geliyaa xariir noqday. waxa kor la saaray muxuu noqon doonaa? maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar. wallahi in laga war doonaa fiican, wallahi in la dadaalaa fiican. haddaan jannada xaqiiqdeeda ogaan lahayn wax badan ayaa noo khafiifi lahaa. wax badan baa murugigii dhibaato naga baabi'i lahayd. wax badan baan dareemi lahayn nolosha inaananba weli gaarin. nin baa u maleeya nolosha meeshii ugu dambaysay inuu gaaray. hal baabuur buu gatay, hal gurina wuu dhistay, gabarna wuu guursaday. wuxuu u maleeyey khalaas nolosha inay kaamil noqotay. markaasay dhibaatadu timid. mar walboo dirham siyaadaha u ziyaadaa,
mar walboo adduun siyaadaa dhib siyaadaa, mar walboo adduun kugu furmaa aakhiro laga fogaadaa, mar walboo aakhiro loo farxada adduunku wuu sii qafiifaa. sidaa darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaagga iyo qiimaha sharafta iyo cizada iyo karaamada leh uu dhex yeelay. maalin kasta oo jumco ah rasuulku wuxuu yidhi waa la baxayaa. xaggee la aadayaa? suuq ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. yaa baxaya? ragga keligii. dumarka in badan waxaa lagu ammaanaa guryo fadhi, waxaa lagu ammaanaa inay guryahooda fadhiyaan sida ilaahay tilmaamay subxaanaه wa tacaala. fiihinna khayraatun xisaan xuurun maqsuuraatun fi اlqiyaam. waa cadcad lagu khabisay oo lagu celiyey qiyaamka. waa qiimadda, waa qolka fadhiga. sidaa darteed dumarka ahlu jannaha ilaah wuxuu ku ammaanayaa wareeg la'aan, socod la'aan. sidaa darteed ayaa mar walba ilaahay kuwa adduunkana uu odhanayaa waqarna fii buyuutikunna, laakiin idinka adduun baad joogtiina walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati haddaadan u baxaysaan waxaad u baxdaan idinkoo hagoogan oo jilbaaba wataan. markii suuqa la tago ragga mar allaala markay meesha aadaan waxaa imaanaysa dabayl buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. wejiyaalkooda ayay saa u maraysaa, waxay u siyaadinaysaa xusnan wa jamaalan, qurux buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam iyo jamaal. maalinba maalinta ka mid ka dambaysaa waxaa u kordhaya ahlu jannaha qurux iyo jamaal iyo yaraan iyo shaabnimo. sida adduunka marka la joogo sanadba sanadka ka dambaysa haram iyo gabow iyo ducfi uu kugu siyaadaayo. waa bilcagsi. adduunka sanadba sanadka ka dambeeya qofkuusi wuu tagayurmayaa, wuu doorsoomayaa, ma socon kara qaarkii, ul buu qaadanayaa, dhibaata la gaarayaa. sanadba sanadka ka dambaysa suu haram iyo gabow iyo duqnimo iyo lafaxanuun uu kugu siyaadaayo. jannada sanadba sanadka ka dambeeya ama saacadba saacadda ka dambaysa xusnan wa jamaalan. markay maalintaas soo qaataan bay xaasiskooda u soo noqonayaan buu yidhi rasuulka sal allahu calayh wasalam. xaasiskii way yaabayaan, warsaad nooga tagteen maba tihiin, maxaa isbedelay? ayagiina waxay odhanayaan raggii warsaad idinkaga tagna maba tihiinbe. ayagana meeshii baa loogu siyaadiyey gabdhihii xuralcaynta ahaa, kuwa adduunkaa soo haray. gabdhaha adduunka joogo ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala, awaamirta ilaahayna ku dadaala. ahlu jannaha haddii jannadu ay galaan dumarku door weyn bay ka qaataan. islaam waayeel ahaa nebiga u timid sal alla calayh wasalam. yaa rasuul allah ilaahay ii tug bay tiri inaan jannada galo. cajuuso jannada ma gasho buu yidhi sala allahu calayh wasalam. fawalad wabakat, way jeesatay wayna oysay. war u sheega buu yidhi ilaahay baa soo dejiyey ina ansha'naahunna inshaaa fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban liasxaabi اlyamiin. adigoo saas gabow u ahoo duqowday oo wejigaagii isbedelay geli maysid, laakiin waa lagu dhalinyaraynayaa, waa lagu amaamudayaa, waxaa laga dhigayaa mid hadda la abuuray. ina ansha'naahunna inshaaa fajacalnaahunna abkaaran, bikradaan ka dhigaynaa gabdho cusub buu yidhi ila subxaanahu wa tacaala. fajacalnaahunna abkaaran curuban. curubka maxaa loola jeedaa? curubka waa naagta ninka aad u jecel, curuban raggooda jecel, khilaaf aan jirin, dhibaato aan jirin, murun aan jirin, qiyaan isdhahayn, wax sixroolo u tagtaan baasqalahaan ha lagaa waxeeye, waxaasoo dhan ma jirto. curuban atraab haddana waa isku da, mid walba waa 30 jir ama waa 33 jir. waa xilliga ugu mac, waa xilliga raaxada ugu macdahay, waa xilliga qofka uu tamatuci karo, waa xilliga qofka khayrka iyo wanaagga uu heli karo, waa qofka xilliga ilaah uu ugu talagalay subxaanahu wa tacaala inuu karaamadiisa iyo sharaftiisa uu ku raaxaysto. waa qofka ilaahay rumeeye subxaanahu wa tacaala. haddaba gabdhihii adduunka waa la xuuralcaynaynaya ayaga laftigooda. xuuralcayn buu ilaahay ka dhigaya subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed baa markay jannada galaan oo ilaahay jannada ugu talagalay subxaanahu wa tacaala waxaa laga dhigayaa gabdho cusub oo abkaar ah oo aad iyo aad u qiimo badan. xataa way ka qiimo badan yihiin baa kuwa jannada ku abuuran ee xuuralcaynta markaa ah. sababtu waxay tahay kuwan adduunkay soo mareen, shaydaan bay ka soo badbaadeen, xumaan bay ka soo fakadeen, ilaahay bay caabudeen, salaad bay la yimaadeen. marka qofka muslimka waa inuu saa ogaadaa, waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa khayr badan inuu u yaalo oo markaa ku talagalaa. xaaladaa markuu sameeyo ilaahay khayr buu siinayaa. haddii arrintaa la samayn waayo walaalayaal oo camalkeeni maanta aan ka caajisno oo aan adduun keliya raacno, taasaan naga fakanaysaa. taasaysan u fakanin adduunka iyar gacanta ha lagu haysto. war fardcaynkii waxyaabihii nooca ahaa iyo fardu kifaayi haddaan ka helno, bal waxooga aan u kaadinoo dhinaca kale ha la fiiriyo, in badan ha la fiiriyo. kitaabaheena waxa noogu qoran aan fiirino. ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaagga iyo sharafta iyo gabdhaha xuralcaynta ayuu diyaariyey. khamradaa saafida ah waxaan indha arkin, dhegana maqlin, qalbi bini aadamna ku soo dhicin. bacdamay sidaa tahay walaalaal annagana aad aan u dadaalno, rabbigeennana aan ka cabsano, awaamirta ilaahayna aan badino, si aan jannada wanaaggeeda iyo qiimaheeda iyo sharafteeda u gaarno. in yar ee ahlu naarka markay naarta ku jiraan, ahlu jannahuna ay jannada ku jiraan, dadkan way nimcaysan yihiin, dadkaasna rafaad bay ku jiraan.
dhibaato weyn bay ku jiraan, way qaylinayaan, way soo hadlayaan, ahlu jannay la soo hadlayaan. maxay odhanayaan? an afiiduu calayna min almaa, war biyo qabow wax nagu soo tuura, aw mima razaqakum allah, ama wixii ilaahay idinku arsuqay, wixii ilaahay idinku arsuqay wax naga siiya. qaaluu ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin. carabka laydin saari maayana leeyahay, dhadhamin maysaan. ilaahay waa ka xaaraantinimay raashin janno, ahlu janno cuntooda inay kaafiriin cunaan ma jirto. dheecanaareedkiina sajaratu zaquumkiini, wixii dhibaatada badnaa meeshiina markaa ku cuna, halkaasay markaa ku jirayaan. gebageba marka janno la galo, kulli lagama sheekayn karo wanaagga ku dhex sugan. ahlu naarna naar ay galaan, malaku mowdkii baa la soo qaadayaa walaalayaal. malaku mowdka marka la soo qaada waxaa la keenayaa bayna aljannati waannaar, naarta iyo jannada inta udhaxaysa. ilaahay wuxuu odhanayaa yaa ahlu nnaar, ahlu naari kor bay madaxa usoo qaadayaan, farxad. waxay moodayaan in kastoo bax la dhahayo. ma u jeedin midkaan? haa. ma garanaysaan? haa. waa maxay? waa meydkii. yaa ahlu janna, kor bay madaxa usoo qaadayaan, wax yar bay baqayaan, waxay u moodaan kasoo baxa in la dhahay. ina aladiina aamanuu وcmلوا الصالحaaت kاnت لهم جaناaت الفirdوس نزلا khاaldiina فيiha laa yبغوuna canha xiwala. inay ka guuran xataa codsan maayaan, ilaahayo banaanka noo bixi hal mar xataa dhihi maayaan, laa yabغuuna canha xiwala. sababtu maxay tahay? meesha meel laga dhammaan kara ma aha, meesha meel laga sabri kara ma aha, meesha meel laga bixi karaa ma aha. malaku mowdkiisoo ma aha, waa lagu dhex gowracayaa jannada iyo naarta inta u dhaxaysa. ahlu jannoy khuluudun laa mowta fiihi, dhimasho ma jirto. wayaa ahlu nnaar khuluud, ahlu naaray idinkana waad waaraysaan. intee lagu waarayaa? naar. kor waa naar, lahum min jahannama mihaadun wa min fawqihim gaash. dhinacyada oo dhan waa dab, kor waa dab, waad ku waaraysaan. qofkii la yidhi ka warrama walaalayaal, ilaahay aan ka cabsana subxaana wa tacaala. saasaa loo kala baxay. jannana saasaa loogu abaalmarinayaa qofkii jidkeeda raaca, naarna saasaa loogu abaalmarinayaa qofkii madax adkaado amarka ilaahay diida subxaana wa tacaala. ilahay xaq ayaan ka baryaa inuu xaqana waafajiyo, nagana dhiga dad ahlu janno ah, nagana ilaaliya naarta iyo dhibkeeda iyo mashaakilka ay leedahay. keena xanuunsanna ilaahay ha caafiyo, keena murug haysana ilaahay murugta haka